بسم الله. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولكن قال لك أنت أنا قد قلنا موضوع عيقة وحن رامرك أن نقول قيب سدو نبي عليه الصلاة والسلام أيها صحابة وحكوا يدي أيعجز أحدكم متكين مكا عاجسيا إن أكون حسن سميه كن أجر إن قرأ كن حسن إن معناه لي مادو كن دنبنا لغرافو مركاسا فسأل سائل مدبا استاغي الصحابة النبي يقول: يا رسول الله يا أول تاس مركاسا يقول عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة قفكو بقول جربوا سبحان الله دحيا بسأ مركاسا وحا لو قريا كن حسنة لو قريا يعني هلكي حسنة طوال لو قلفتي سبحان الله بس بقول جردها يا مركاسا كن حسنة لو قريا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مركان وحا لغا ترتريا كن دنبيبا لغا ترتريا بقول حسنة تكون كوها شيء كورن كن جر هدات هذا سبحان الله سبحان الله كن جر هدات كورن الحمد لله الحمد لله كن جر هدات كورن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إمثال قريا لو درى البشر إنه كجرنا صحابته وحي إليهن عائشة رضي الله عنها أم سلمة أسامة بن زيد كل قد سننك وحي إليهن نبي جمانا أركن بل وكسهم بديه بشن شعبان بل وجح حريرس بديه وأنتوا صوم وقدر بل كلا قد بقى بتسينيو وأن كأهن بشن ها روحه وجار أسامة بن زيد وودي صحابي قال لي يا رسول الله أديكوا بشن ما أركن بل أد وقصهم بدنتهاي بل أد كحريرس بدنتهاي ما أركن بشن يا رسول الله بل بشن سيف حجرة مركز صحيح عليه الصلاة والسلام وبل دتفر بدن أي كقفلتك كجرام ويا ذاك شهر يغفل وبل أي كغفل زين تذكر بدن كودا بين رجب ورمضان ويا وبل أول حيث الرجب ورمضان تذكر بدن كودو كم مشغول سنين بشا أيضا أبي النبي عليه الصلاة والسلام وبشا إنه كجرنا هاد إيه دور كبركة هاد أسبوع وحجر باكار إيه ضماته وحجر عليه الصلاة والسلام بشا أيضا وبل عملك الصالح أنت لقادو إلهي الله بندقه aniguna waxaan doonayaa in ilaahay loo bandhigo camalkayga aniga oo sooman yaa saas dhahay ma taqaanaa xabiibka dhahay calayhi salaatu wasalaam isagoo dambigiisa la dhaafay camalkiisa la aqbalayba adiga iyo aniga shimeena la aqbalay shimee isdhiganaa goormaynu isdhiganaa aniga adiga nabigii ahaa ambiyada imaamkoodii ilaahayna subxaanahu wa tacaala doortay dambigiisa horkii dambe dhaafay fatxiga nasriga siiyey ilaahay jeclaaday akhlaaqdiisa tilmaamay ilaahay gacmihiisa tilmaamay araggiisa tilmaamay daharkiisa tilmaamay si kasta ilaahay xataa xubin xunuu u tilmaamay maxabada uu qaba calayhi salaatu wasalaam ayaa dhahaya aniga tawaaduc fiiri aniga bishan waxaan doonayaa inuu ilaahay arko acmaasheeda saalixaadka anigoo weliba sooman adigana adigoo qaylinaya rabta acmaasheeda in la qaado adigoo dagaalamaya adigoo wax xamanaya adoo cogad kaa buuxdo adigoo oo rafaadsan adigoo oo dambi ku jiro adigoo oo macaasi dhex fadhiya waxaa rabtaa camalka ilaahay loo geeyo ambiyadii baa heerkaa taagan walaalkii waxaad u malaysaa maqsadu lxayaa nolosha sidiina loo sameeyey si aan ahayn aan u shaqaynayno aniga adiga maalintii aad dunida imanaysay halkaas ayaa lagaaga adimay halkaana waa lagaa aqimay labada dheg salaada marka la adimo ee la aqimo maxaa ku xiga waa in la tukado Soomaa hadda waa lagu aqimay anna waa lagu aqimay waa lagu adimay waxa inoo dhiman in lagu tukado bas oo janaazadii ah xayaateedina waa bayna al-iqamati was-salah wa intana looga tukanayo iyo intaas janaaza mataqaanaayna laga diyaarinayo noo dhiman waa xayaata basiita kaliga bad adduunka timid ilaahayna kaliga bad la kulmi doontaa wa kulluhum aatihi yawma al-qiyamati farda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلي بد أدونك تمد كلي جابون إله سبحانه وتعالى جل جلاله أوامرتك سيرا أمرك قاعدة سيكون ضيته كلي جابنا لو حساب دونا ودي القرو مع المها إيجا حسنات كذا عنكم بالله بينه